ma rabtaa inaad alaab ka soo iibsato Alibaba laakiin waxaa ka cabsanaysaa in lagu dhaco ama lagu soo diro alaab xun midaas oo dad badan ku dhacday aan ka aragnay baraha bulshada halkan waxaan kula wadaagi doonaa talooyinka ugu muhiimsan ee aad ku badbaadi lahayd marka hore ha iibsan alaab kasta oo aad aragto sida Facebook ama meel walba ku aragto alaab ha ka iibsan marka hore Alibaba wax ka iibsanaysid waxa ugu horeeya fiirinaysid waa verified supplier inuu yahay oo ka dhigan in Alibaba xafiiskooda soo huwisay oo verified yahay oo tikas buluuga saaran yahay waxaa jiro kuwa qaar aan lahayn ha ka iibsan kuwaas trade assurance mid labaad waxa waaye waa caymis lacagtaada celinay haddii alaabtu xumaato ama dib u dhacdo ama ku qanci weyso in alaabtaada lagu soo bedelo ama dib lagu celiyo halkan muuqaalka ka aragtid waa alaab aan dalbaday lacagteedana aan bixiyay sida ka muuqato waa saacadaasoo markii dambe ay ugu dhaheen ma hayno noocan kadib waxaan ka dalbaday in lacagtay dib igu soo celiyaan waxay ugu dhaheen saacado kale aan ku bedelo balse waan ka diiday marka waxay dib igu soo celiyeen lacagteeda taas waxaa suurtagelisay trade assurance-ga oo ah waa wax idin dhexeeyo shirkadda ama warshadaas iyo adiga qodobka saddexaad lacagta ku bixin meel ka baxsan Alibaba haddii jeer ku bixi lacagta dhexdeeda Alibaba trade assurance adigoo isticmaalaya kaarkaaga sarka ah ama fiisaha si lacagtaada u badbaado haddii Alibaba dhexdeeda meel ka baxsan lacagta aad ku dirtid wax caddayn ah uma haysatid inay idin dhexmareen wax wada iibsi waxaad dalbataa sambal intaadan dalban boqolaal xabo ama kumanaan xabo hal shay dalbo ama saddex shay dalbo si aad u hubisid tayada midabka iyo cabirka shaygaas haddaad ku qanacdo kadib ayaad dalban kartaa dalabka weyn